Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waalidiinta qaaliga ah ee ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare gobolka Minnesota ama wadanka Mareykanka, waxaan jeclaan lahaa inaan idinku wacyigeliyo hal arrin. Midaasna waa in ilmihiina waqti aad u heshaan markay iskuulka ka imaadaan 5 daqiiqo hata ha ahaato maalintii ama 10 daqiiqo oo aad ka wareysataan xaaladooda iskuulka iyo sida uu ahaa. Midaasna waxay kasbaysaa in ilmihii iyo waalidkii ay xiriir sameeyaan oo ilmihiina waalidkii ay aaminaan. Waxyaabo badan waxaa jirto oo ilmaheena ay la wadaagaan macallimiinta iskuulka ama maamulayaasha ama dadka ka dhexe ka shaqeeyo iskuulada, oo hadday yihiin dadka bulshada u shaqeeyo ama dadka xagga waanada ah. Dadkaas ayay kaga kalsoon yihiin waalidkii. Ka waran adiga cunugaagii haddii uu adigii kalsooni kugu qabin oo akhbaartii la rabay in adiga waalidkii lala wadaago uu la wadaagayo dadkaas kale uu ka cabsanayo. Waxaan jeclaan lahaa in aad ilmahaaga kalsooni tustid. Kalsoonidana waa la kasbadayo, waa in adiga aad tustid in ilmahaaga adiga qofka ugu jecel wanaagooda iyo waxtarkooda inaad adiga tihid inaad barto ilmahaaga, oo ilmahaaga aad kasbato oo aad tusiso inaad adiga tihid qofka ugu horeeyo oo difaacayo, qofka ugu horeeyo oo u hiilan si ay ku aaminaan. Maxaa yeelay ilmaha waxyaabo badan ay kala kulmaan iskuulaadka. Waxyaabo badan ay kala kulmaan maxaa yeelay waxay la dhaqmayaan ilmo oo ka kala imaadeen guriyo kala duwan, waalidiin kala duwan ayaa dhaleen, dhaqan kala duwan, diin kala duwan, jinsiyad kala duwan. Hataa dad waxaa iskugu imaada mushakil ama iskugu imaaday mid fiican iyo mid xun buu ku jiraa. Sidaas darteed waa inaa cunugaaga wareysataa. Ilmaha waxaa ugu badan iskuulaadka ka dhaco. Iskuulaadka ilmaha kale waa isbajiyaan. Ma aha sidii wadankii Soomaaliga anaga ahaan jirnay oo ilmihii haddii wax yar ay dhacaan anaga badanaa Soomaalida gacan ka hadalay taqaanaa. Soo gacan bay ka hadlaysaa oo cunugii dhaawacii wixii la arkayaa meesha ku dhamaanaysaa. Meeshan maaha, meeshan maskaxiyan waay. Cunuga maskaxda laga dilayaa. Waa moraalka laga jibinayaa. Cunuga haddii moraalka laga jibinayo dee wadanka ma u dhamaatay. Waa maskaxdu naafo ka noqonaya qofkaas. Oona badanaa way adag tahay suu ku soo kasbado. Oo sidaas darteed inaad ogaatid ilmahaaga xaaladooda. Macallimiintana badanaa waxyaabo badan jira iskuulaadka macallimiinta ay isku sheegaynin. Macallimiinta ayaga waxa ugu muhiimsan iskuulka maamulaha khaasatan iskuulaadka oo ay dhigaan dadkan oo ilmaha ay aadaan ajaanibta ah. Waxa ugu muhiimsan waa ammaanka waay. Ilmahaaga haddii aysan foodo badnayn oo iskuulka carqaladeynaynin, waxyaabahan kala dhan ma la sheegayo oo waxyaabo badan waxaa ka jirta ilmahaaga lagu sameynayo. Aniga waxyaabo badan oo aan arkay waxaa ka mid ah in waalidka Soomaaliga ilmihiisa markuu wax sameeyo hore laga soo wacaa. Laakiin ilmihiisa markii wax lagu sameeyo badanaa waa la iska indha tiraa oo waxyaabo waxa ahayna laga soo qaadaa. Laakiin waalidkii haddii cunugii uu wareysto, cunugii wuu u sheegayaa. Waalidkii markaas asaga ayaa cunugiisa ah inuu xaqii cunug u raadiyo. Wadankan